mid waa dardaaranadii aad iga barateen oo go'aankan wax yar ka odhan doona laakiin munaasabada loo joogo iyo buuggan ee ayga ah faa'iidooyinka uu leeyahay iyaan insha allahu tacaala wax yar ka odhan doona horta mustaqbalka adduunyadu waxa ay u socotaa in ibn aadan shaqadii laga maro nin baanu ku kulannay waddanka israa'iil ka yimi oo yaanu beri ku kulannay dirdhawe wuxuu beer baan leeyahay 420 ay baa ii ilaaliya ilaalinta beerta mooyaane shay kale iima qabtaan buu yidhi moobilkiisuu ka waraabiyaa beertiisa israa'iil ku taala isagoo dirdhawe la jooga message baa u soo gelaya tamaandhada waraabinteedii baa gaadhay halkan ugu soo dhacaysa bartan uu kaga furaya ee ay isagaa iska xidhaya marka technically marka ay beertu halkii ku cabtay isagaa iska xidhaya 20 iyo 40 waarday waxay u qabtaan wixii shiciga u dhacaya tamaandhada xadaya qura bay ka ilaaliyaan laakiin wax shaqo kale uma qabtaan ee aygu on that level faa'iidada uu leeyahay bay in ka mid ah tagale shaqa dhimis badanna waa keeni doonaa ibn aadanka waa laga maarmo fursado badan iyo mushaaharo badanna uu ka dhigin doonaa hantilayaashu inay ku farxi doonaan baan u maleeyaa muranka dadkana way kaga raysan doonaan faa'iidooyinka kale ee uu leeyahay in aygu waxaa ka mid ah caafimaadka dhakhaatiirta shaqadoodana mustaqbalka inay halis geli doonto ayaa laga yaabaa ee ayga faraha lagugu xidhin kelyahaagu waxay qabaan beerkaagu wuxuu qabo sanbabkaagu wuxuu qabo dawada aad u baahan tahay inta waqtiyeed qaadayso intaba screenshot warqaduuba kuu soo daabacaya aad farmasiga la tagto nothing doctor soo baariya dhiigkeen iyo warkaas soo dabow inuuna jiri doono waxa kale oo la yaab leh transport service-ka halista tusaale ahaan ee aygu waxyaabaha uu cajaa'ibka ku yahay waxaa ka mid ah transportation systemka tusaale ahaan garoon diyaaradeed oo within 1 hour 100 diyaaradood 50 soo degto 50 ka duusho bal hada ka taliya halkii diyaaradna minimum ay 200 within 24 hours waxa adeeg ka raba 480,000 oo rakaab within 24 hours waxaad ku badisaa 24 saacadood 100 diyaaradood 50 duushay 50 soo degtay markaad xisaabiso waa 2,400 waxaad ku badisaa 200 oo rakaab oo saara 480,000 oo qof inta u diyaari haddii lagu yidhaahdo amba suuligay gelayaan biyahay ku isticmaalayaan mise litro biyo loma nacam it is not an easy work intaasoo diyaaradood shidaalkoodii iyo rakaabka cuntadiisii iyo jeegarayntii iyo alaabtii wateen rarideedii imagine nacam hawsha halkaa ka taag waan aragnay xaafaddeena 2 qof oo martay markay noo timaado xaafadda dhan baa isku dhex yaacday see la yidhaah halkii cuntada lagu hadda waa 2 qof marka waa qiyaasi kartaa ee aygu faa'iidada uu leeyahay halka waad ka qiyaasi kartaa marka ee aygu waxa kale oo uu faa'iido u leeyahay in every sector hawl yaraysi badan ayaa soo socda digaagadu marka ay dhasho 21 maalmood bay ugxantu ku kacdaa 21 ka maalmood every 4 hour amba every 5 hour waa in ugxanta hal mar la rogaa haddii kale yog qaybtan huruudda ahbaa dhanka sheelka maxaa la yidhaha kabarka sare ee inta adag maxaa la yidhahdaa dahaarka adag ee oo kunta ayuu ku dhegaa markaa unfertilized uu noqdaayo oo uu qurmaa markaa si uuna u rogin every 4 hour amba every 3 hour digaagadu way rogtaa maxaa la sameeyaa haddaba maashinkan la yidhaahdo incubatorka waxa uu ku programsan yahay AI ah inuu every 3 hour amba 4 hour isagu rogo ugxanta dhanka kale u rogo oo 70,000 amba 80,000 oo ugxana lagu kaydo marka digaagadu shaqada ay qabanaysay baa isaga loo diray
that's the AI. That's the AI. waxa kaloo jirta waxa uu ku sahlayaa AI-gu amba artificial intelligence-gu it will tell you the reality been ma yaqaan maxamedna waa maxamed faadumana waa faadum maanta magacan sheego ay sara ma jirto maanta deeriye yara noqon ma noqonayso waa run mar hadday xog dhabihi ku hor taalana you can make easy the decision go'aanka aad qaadanaysaa wuxuu noqonayaa mid xaqiiqo ku qoto oo xog sax ayuu ku soo bandhigaa ta kale waxa uu ku tusayaa amba intelligence-gu uu ka caawinayaa AI-gu uu ka caawinayaa baahida marba repetition of work shaqada aad qabanayso soo noqnoqodkeeda inta jeeray soo noqnoqotay iyo number of customers-ka dadka aad adeega siisay qaabka ay tiradoodu inta ay dhan tahay iyo service-ka kuugu badani nooca uu yahay waxa research baan bari samaynayno waxa qoftana iska ahaatee research-ga waxa lagu samaynayay women empowerment dhiirigelinta haweenka in la xoojiyo marka gaargaar baa loo wareysanayay hooyaa la wareysto waxaan lagu yidhi bal dhibaatooyinka ku haysta maxaa ka mid ahoo dee uu reerku xoolo badan u samaysan lahay waxay tihi hooyo laba waraabaa jira bay tihi mid aqalku igula nool yahay bay tihi midna waa duurko ka aqalka igu jira igu daran waraabaha duurka jooga ee xoolaha ka cunaya waan iska celin karaa bay tihi laakiin odaygayga waraabo kale aho intuu jaad amaahdu toddobaadkiiba orgi iibsadaa marka waa waraabo duurka iyo waraabo raggu gruubka waraabahay ku jiraan marka inta qayishay marka AI bay u baahan yihiin lagu xalliyo iyaguna hawshoodaas ta kale manufacturing industry amba entertainment-ga waxyaabahan xayeysiiska ah ee amba alaaba lagu xayeysiiyo dukaamaha lagu xayeysiiyo qayb bay buu ka qaataa without any payment adiga mobilkaaga ku samaysan kara alaabta aad doonaysa inaad iibiso amba xogta aad doonaysa inaad dad gaarsiiso easily you can waad samaysan kartaa marka caqliga macmalka ahi waxa uu mustaqbalka noqonaya amba aqoontu dadku sidaad u aragtid oo qurama idea difference baa jira qaabka loo adeegsanayaa jira allahu naxariistay hadray wuxuu yidhi inta maanku gaajaysan yahay guuli kaa maqan inta aad calmi ka maran tahay inta aad caqli ka maran tahay inta aad caqliga sabool ka tahay you are poor always you are poor saboolnimadu wax kale kama timaaday waxa ay ka timaadaa aqoon la-aanta ta kale AI-gu waxyaabaha idea difference amba waxa loo adeegsanayo ninba sibu arka wada garashadu hadday ruux la tahay suu garanayo garaadkiisu suu qaba haddii loola garan waayo gardaru u qaataa ninkii yidhi garaadki sidaan idhi unbaa saxa amba taan qabo haddaanad ila qabin waa in laysku xaq dhowraa kala duwanaanshaha ee aragtixumaad ku sifowday in lays yidhaah ma wanaagsana marka ugu dambayntii cilmiga iyo maaragtay aqoonta aynu baranaynay waxa iga dardaaran inay noqoto akhlaaq ahaan inayna kobciso iyo xirfad ahaanba inayna kobciso marka baahiyaheenna aynu marba ku xajinay biyo la-aan leh ee caafimaad xumo leh ee jid la-aan leh ee shaqo la-aan leh ee dhaqaala yaraan leh ee aqoon yaraan leh waxaynu ku xallin karno inaynu noqono aynu ayaga uga faa'iidaysano sida uga habboon waa iga dardaaran qoraagana waxaan leeyahay nin dhalinyaro ah baa tahay waana ku dhiirigelinayaa intaa iyo in ka badanba waana lagaaga fadhiyaa aad baan qaybtaas markaa intaas ayaan inta ayaa ayaga ku koobi doonaa ta kale in yar waxaan ka odhan doonaa go-aanka decision go-aanku waxaa la yidhaahdaa go-aanka qofku maalintii waxa uu gaadhaa 50 ilaa 75,000 oo go-aana ayuu qofku maalintii gaadha waad ka yaabteen soo maha statistics qofku single individual adigaagaasi maalintii waxaad gaadhaa 50 ilaa 75,000 oo go-aan baad gaadhaa go-aankaad qaadanaysaa haddaba 90% ama 95% ku talagal maaha
shan amba 10% qura ayaa go'aanka aad qaadanayso ku talagala markaa waxa iga dardaarana go'aanka aynu qaadanaynaa saddexda inuu sababuma kow mid iigu madeedaadiyay inuu noqdo ma aha waa talabaade mid huqiya ciil abuuray inuu noqdo ma aha mid ilmo ibni aadan wamba ilinta dadka ka daadiyo oo isaguna macmal kale ku reebo inuu noqdo ma aha marka go'aanku wax badan baa laga odhan markaarana waynu ka hadli kolay saacadda iyo waqtigaa kooban mas-uuliin kaloo badanina way yimaadeen intaasaan kolay ku koobi doona aad iyo aad baan idiin jecelahay aad baan idiin salaamayaa